oo aabbaheed dool uu qaadi iga dhigtay iyo walaayadeedii siiyey. gabadha waan kuu guuriyey, waan kugu meheriyey, meherkeedana waa baytullaahi alxaraam, xajka inaad geyso xaq bay u leedahay, oo beydka ay soo tawaafto, xajka ay soo gudato, iyo musxaf qur'aan ah oo aad siinayso. gabadha arrimahaasaan kugu guuriyey, meherka iyo nikaaxa mu ku aqbashay xasan cabdi muusow? waan ku aqbalasha. waa dhacdo uguba. waa gabadhii horraysay ee Soomaaliyeed ee fanaan guursanayo, haddana meherkeedii ka dhigataa inuu xajka geeyo beydka Ilaahay. waa tuma taasi? waa xaaska fanaanka Xasan Gantaal. haddaba maxay tahay sirta ka dambaysay in gabadhan ay qabsato mehera in xajka la geeyo, kitaab quraanana la guddoonsiiyo? qodobkaas aynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadan la wadaag. soo dhowaada barnaamijka. waxaa shalay magaalada Nairobi caasimadda waddankaasi Kenya ka dhacay meherka fanaanka weyne caanka ee Xasan Gantaal, isagoona mehersaday Ubax Maxamed oo ku noolayd magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. haddaba meherka gabadha lagu meheriyey Xasan Gantaal ayaa ahaa mid ka duwan meherada caadiga ah ee ay qabsadaan gabdhaha kale ee Soomaalida, kuwaas oo lagu meheriyo lacag iyo dahab iyo diinaarba, kaasoo ahaa inay gabadha uu mehersaday ay meherkeeda ka dhigatay inuu geeyo beydka Ilaahay, ayna soo gudato waajibaadka xajka leh, iyo inuu guddoonsiyo masxafka quraanka, gaar ahaan kitaabka quraanka. dhacdadan ayaa noqotay mid aad baraha bulshada u qabsata, ayna ummadda Soomaaliyeed aad u qaadaa dhigto, gaar ahaan baraha bulshada sida Facebook. hadalhaynta fanaanka Xasan Gantaal ayaa waraysi uu bixiyey dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ee November. waxa uu ku sheegay gabadhii markii ugu horreysay uu jeclaa uu ka qaaday abtigii, taasoo markii dambe uu ka tanaasulay, wuuna u talaasulay abtigii, maadaama abtigii uu aad u jeclaa gabadha, isaguna oo aad u jeclaa, ayna isku qabsan waayeen gabadhaasi maadaama yihiin wiil iyo waalidkii. jacaylkiisii hore ayuu ka sheekeeyey iyo waxaabihii ay isla soo mareen iyo sida uu abtigii uga qaaday. waraysigaas uu ka qaaday weriye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac oo ka howlgala telefishinka caalamiga Universal. fanaanka Xasan Gantaal ayaa muddo aad u dheer single ahaa, isagoona ku noolaa magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya. dad badan ayaa ka falceliyey meherka ay qabsatay xaaskiisa cusub ee Ubax Maxamed, taasi oo ka duwan meherada ay qabsadaan gabdhaha Soomaalida. fanaanka Xasan Gantaal ayaa fanaan aad looga qadariyo guud ahaanba dalka Soomaaliya iyo magaalada Nairobi uu ku nool yahay. haddaba daawade, see u aragtaa fanaanka Xasan Gantaal inuu xaaskiisa uu ka aqbalo inuu geeyo beydka Ilaahay ama xajka, kitaabka quraanka uu guddoonsiiyo, uuna baro quraanka? inta fadlan commentiga noogu reeb. qodobka kale ee barnaamijkeena inoo raaci doona ayaa waxaa ka mid ah dhacdo cajiiba. kadib markay inanteedii ay dhimatay oo tii alle ay u timi, ayay hooyadeed la kulantay dhacdo mucjiso. dhacdadani ayaa ka dhacday waddankaasi Masar. qisadani waxay ku dhacday inan dhigan jirtay jaamacad ku taala dalal ka mid ah dalalka Khaliijka Carabta. waxay jaamacadda ka dhigan jirtay qaybta takhaasuska diinta Islaamka ama shareecada Islaamka. inantaasi waxay lahayd cod aad halaasi oo aad u macaan, waxayna ahayd mid habeen kasta ku akhrida quraanka kariimka codkeeda macaan ee halaasiga ee quruxda badan. hooyadeedna waxay ahayd mid ka dhageysata albaabka dabadiisa habeen kasta marka ay quraanka ku akhrinayso codkeeda quruxda badan ee halaasiga. waxaa ka soo wareegay dhowr maalmood. maalin maalmaha ka mid ah ayay xanuunsatay gabadhii, waxaana qoyskeedu u soo qaadeen cisbitaalka. dhowr maalmood kadib markay ku hayeen ayay geeridu u timi. way dhimatay oo geeriyootay, tii alle ayaa u timi.
waxayna ku dhimatay cisbitaalka dhexdiisa. Arrinkii waxaa loo sheegay qoyskeedii, waxaana aad uga murugootay hooyadeed. Gabadhii waa la soo aasay, hawsheediina waa la dhameeyey, waana loo duceeyey, tacsina waa loo dhigay. Markii tacsidii dhammaatay, habeenada ka mid ah, iyadoo saq dhexe ah, ayay inantii dhimatay hooyadeed istidhi, qolkii inanta ama gabadha soo eeg. Markii ay qolkii u soo dhowaatay, ayna in yar u jirto, ayayba maqashay codad badan oo oohin yaro hoosaysa ah ay ka baxayso oo aan aad u dheerayn. Qolkii ay quraan ku akhriyi jirtay gabadheedii dhimatay. Hooyadii aad ayay u naxday, aad ayay u baqday, way cabsatay, qolkiina maysan gelin oo dib ayay uga noqotay. Markii subaxii la gaadhay, ayay u sheegtay bulshada wixii meeshaasi ka dhacay. Dhammaan reerkii waxayna u soo eegeen qolkii subaxnimadii. Faamiligeedii ayay u sheegtay odaygeedii iyo carruurteedii kale, laakiin waxba kamaysan helin. Habeenkii xigtay isla waqtigii ayay hooyadii istiri qolkii soo fiiri. Haddana waa isla codkii uun, oo codadkii ayaa ka baxaya oohinta ahaa. Waxay u sheegtay ninkeedii, wuxuuna yidhi aroortaynu soo fiirin doonaa. Waxayna yihiin codadkaasi laga yaabaa inay yihiin waxaad adigu sawiratay oo dhegahaaga iyo maskaxdaada ka guuxaya. Haddaba markii subaxii la gaadhay, ayay tageen qolkii ay gabadhu quraan ku akhriyi jirtay. Waxna way ka soo waayeen. Hooyadu way ku adkaysatay. Waxa ay maqlayso inay yihiin wax jira oo dhaba oo ay habeen kasta maqasho. Waxayna u sheegtay saaxiibadeed, gabadhaas oo saaxiibadeed ahayd. Saaxiibadeed waxay u sheegtay inay culimada u sheegto. Waxay u tilmaamtay sheekh cilmi badan yaqaana. Hooyadii waxay u tagtay sheekhii, waxayna uga warrantay qisadani cajiibta ee ku dhacday. Sheekhu aad buu la yaabay maamada. Arrinkuna wuxuu yidhi waa inaan inamada guriga isla xilliga aad codka maqasho aad ii yeedhaa. Sheekhii waa uu yimi, waana loo yeedhay. Gurigiina waa uu soo booqday, waxaana looga warramay inay inantoodu ahayd mid quraanka akhrida saacadahan oo kale habeenkii, oo habeen kasta ay saacadahan oo kale quraanka akhrido. Sheekhii waxa uu soo dhowaaday qolkii, wuxuuna maqlay isla codadkii oohinta ahaa. wuuna ooyay sheekhii. Isagana waxaa la yidhi maxaa kugu dhacay oo aad la ooyaysaa sheekhow? Sheekhii oohin ayuu afka qabsaday. Muddo ayuu ooyayay isagoo aan su-aashii ka jawaabin. Sheekha ayaa ugu dambayntii waxa uu yidhi waxaan la ooyayaa waa malaa'igtii, waxayna ahaayeen. Sheekhii waxa uu yidhi waxaan qolka ka dhex ooyayaa waa malaa'igtii, waxayna ahaayeen qaar soo dega oo dhegaysta quraanka ay akhrin jirtay habeen kasta. oo gabadhu way cod macaanayd. Inantu waxayna ay xiiseen ama ay tabayaan buu yidhi codkii macaanaa ee halaasiga ahaa ee quruxda badnaa ee habeen kasta ay dhegaysan jireen ee gabadhu akhriyi jirtay. way dhimatay gabadhii, wayna tabeen. sidaas ayay malaa'igta alle ugu ooyayaan. Ilaahay ayaa mahad iska leh. waa gabadh nasiib badan, idinkuna nasiib ayaad leedihiin buu yidhi sheekhii. Arrinkan oo kale yaa heli kara? daawade, qisadani sidee u aragtaa? qisadani ayaa ka dhacday waddan ka mid ah waddamada khaliijka, gaar ahaan waddankaasi isu tagga imaaraadka carabta. haddaba daawade, qisadan sidee u aragtaa? fadlan commentiga noogu reeb. waa anigu maxamed cali daaha. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.